السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan oo aan meel kasta adduunka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo ah kii koowaad oo aan si wada jir ah u soo gudbino aniga iyo xaajadayda Xamda sidaad ogtihiin waxay iga horeysay xagga warbaahinta TV-yada anigana waxaan ugu horeeyay xagga YouTube-ka marka macallinkayga baa tahay halkaas cadeynaysa oo dhanka YouTube-ka macallinka YouTube-ka aniga marka waxaa jira su'aalo badan oo dad badan ka guuxaya ay dadka isweydiiyaan su'aalahaas ayaan waxaan rabnaa barnaamijkan inaan maanta Xamdana uga faa'iideeyo marka koowaad marka labaadna dadka ku xiran uga faa'iideeyo inta aanan u gudbin waxaan ka codsanaynaa inaad like noo saartaan subscribe noo saartaan share noo saartaan jacaylkaygii su'aasha ugu horeysa aan jeclaan lahaa in anigii bulshadu baan wax ka ogaano waxa ay tahay dad badan baa dabcan imika YouTube-ka mudooyinkii dambe ku soo badanaya oo Soomaali ah dhalinyaro badan marka waxaad arkaysaa dhalinyaradii oo leh subscribe noo saara noo share gareeya fadlan like ta nagala bakhaylina horta maxaa laga faa'iidaa waxyaabahaas oo dhan horta subscribe macnaheedu waxa weeye waa dadka channelkaada ku xiran waa sida like-ta Facebook page-ka loo saaro kale marka macnaheedu waxa weeye qofka markuu subscribe ama like ku saaro page-kaada YouTube-ka aad ku leedahay wuxuu ku noqonayaa follow ayuu ku noqonayaa fariinta aad soo gelisidna wuu arkayaa like iyo share-na macnaheedu waxa weeye horta like de waxaan u malaynaa qofku wuxuu ka helo isaga ayaa like saara marka aniga ma fahmin dadka la leeyahay like saara laakiin waxaan maqlay oo jirta videoga markuu like badan helo inuu xoogaa kor u kacayo tusitaanka ay dadka arkayaan laakiin lacag lagama sameeyo waxyaabahaas may lacag lagama sameeyo lacagta waxa laga sameeyaa view-ga wax la yiraahdo inta ku daawatay waa gartay view-ga markaan soo laabano dadka badan inta badan YouTube-ka wax ka daawada waxay joogaan wadankii ay joogaan Afrika gaar ahaan joogaan marka dadka halka jooga oo kale daawashada lacag laga sameyn karaa YouTube-ka sidaad ogtahay wuxuu ku shaqeeyaa wax la yiraahdo algorithm macnaheedu waxa weeye wuu garanayaa meesha aad joogtid halka ka daawanaysid marka shirkad laga leeyahay tusaale kale Ingiriiska laga leeyahay ama Yurub laga leeyahay xayeysiiskeeda Yurub hadduu ka soo baxo Muqdisho hadduu ka soo baxo Hargeysa ama laga daawado Kenya lacag kuma bixinayso marka haddii video-yadaada badana laga daawado wadankii Soomaaliya oo kale meelaha Soomaalidu ku badan yihiin Afrika lacag badan ka heli maysid way marka maxaa lacag laga sameeyaa lacagta waxa laga sameeyaa horta waxaan oran karaa dad badan horta khalad ay ka fahmeen oo waxay maqleen YouTube-ka lacag ayaa laga sameeyaa xaqiiqda waxay tahay YouTube haddii rabtid inaad lacag ka samaysid waa in aad juhdi badan gelisaa waadna aragto waxyaalo badan oo sumcadda u fiicnayn dhaqanka u fiicnayn diinta u fiicnayn inay dadkii badanaa wax ka raadinayaan si loo daawado marka lacagta waxa laga sameeyaa waa daawashada saan kuu sheegay marka aad bay u adkaanaysaa haddii dadka kugu xiran badanaa laga daawado Muqdisho kale ama Hargeysa kale laga daawado ama Nairobi laga daawado ama Kampala inaad lacag badan ka samaysid marka yani aniga ma fahmin dadkan ku wada yaacay waxa ay meesha ku soo arkeen laakiin dad badan oo ka nimca sheeganaya ayaa jiro yiraahdo YouTube-kii waxba laga helay adigu imisa sanaad ku jirtay anigu waxaan bilaabay 2015 2015 afwan 2015 YouTube ma jirin 2015 ayaan bilaabay ayaan dhow waan ku tusay 28kii bari ugu dambeysay waxaan ka helay $18 $18,000 mise $18 haddaan 18,000 iraahdo been baan sheegay waa $18 waana 28kii ugu dambeeyay markii ugu badneed aad wax ka heshay mise yahay saashas dib oo dhiganaya halka waxaad ku qaranaysaa malaynaya maya xaqiiqdii horta saxda baqashan dad badan soo yaacaan dad badan inay soo yaacaan baa laga yaabaa meeshaasi lacag ma taalo waayahay aad iyo aad u mahadsan tahay inta hadaynu kaga tagno dhanka YouTube-ka iyo arrimihiisa dabcan in anigu imikadan waqtigan xaadirka uma aanan soo gelin inaan dhaqaale ka sameeyo laakiin haddaan wax ka helayo doo iska fiicnaan lahay laakiin waxaan doonayaa inaan waxyaabo badan halkan aynu ku wada wadaagno barnaamijyo badan aan idinku soo gudbino aynu kala faa'iidaysano idinkana aan ka faa'iidno dabcan anagana aan wixii aan markaa garanayna aad naga faa'iidaysataan waxyaabaha ka mid ah aan soo gelin doono maalmaha soo socda insha Allah markay munaasib noo noqoto waxa ka mid ah barnaamijyo badan oo ku saabsan maadaama imika dad badan oo Soomaaliyeed ay Turkiga ku sii yaacayaan anigana aan muddo sanada soo joogay waxyaabo badan oo kala kulmay dalka Turkiga in aanu bartan ku soo gudbino waxyaabaha waxa ka mid ah dadka caafimaadka u raadsado oo kaleeto inaan arrimaha ka hadallo arrimaha Turkiga ee caafimaadka iyo dhaqaatiirta inaan ka hadallo waxyaabo anaga nagu dhacay oo nagu saabsan oo na khuseeya idinkana dabcan waaya aragnimo idin noqon doona iyo faham aad ka heli doontaan dalka Turkiga iyo dhaqaatiirtiisa sida ay u shaqeeyaan
qaabka ay dadka ula macaamilaan qofka ajnabigaas ay ula macaamilaan waxyaabahaas ka wada hadli doona insha Allah arinta ugu badnayd horta waxay ahayd ay YouTube rabtay inay farinteeda ku gaarsiiso waa dulmiga iyo xadgudubka sida qaabka daran ee Soomaalida Turkida loola dhaqmo iyo mataqaana dhibaatooyinka ay la kulmaan gaar ahaan caafimaadka runtii muddo yar bay joogtay sanadkaasna waxay goobjoog u ahayd waxyaalo fara badan haddaba haddii aad niyadda ku haysid inaad Turkiga tagtid inaad maaragtay ku noolaatid inaad maaragtay caafimaad u tagtid waxaan maaragtay ku leenahay filo fiidiyowyada soo socda iyo khibradda Xamda ee ku aadan ay kala kulantay Turkiga mararka qaarkood Turkiga markay maqasho madaxa xanuuna waagi horena way farxi jirtay Turkiga iska daa ku dhaw markaas markii ugu horeysay aan ka wada hadlaynay inaan Turkiga u guurno aan go'an jiray Turkigan doonayay inaan soo dego adoon jirtay bal horta u kaadiyo aan Turkiga soo indheeyo aan soo ogaado oo ballan xaaladiisa soo qiimeeyo kadib baan markaas in guuri doonaa markaas waxaan ku jiray may xaaladiisa halkaas ay iga deeqday laakiin imika wallahi horta sanad baan joogay sanadka aan joogay aniga sanadkaas majority intii ugu badnaa waxaan xanuunsanayay dhakhtarun baan la xiriiriyay markaa laakiin xanuunkii hayay waxa igaga darnaa kaan ka qaaday dhakhaatiirtaan la kulmayay sababtoo ah xanuunku waxaa la yiraahdaa laba qaybood mid maskaxiyan ah iyo qaab dhaqan ah nimankaasi hadda markaa hordhaci doona barnaamijyada aan soo wadno barnaamij ganacsi baan ku soo koobaynaa iyo waxyaalihii aan kala kulanay tallaabo iyo isbitaaladii magacyadoodii iyo habdhaqanka dhakhaatiirta iyo qaabka ay dadka u argagaxgeliyaan intaba waan nila wadaagi doonaa haddaan dib ugu soo laabano YouTube-kani wuxuu noqon doonaa YouTube ka duwan YouTube-yada kale ma noqon doono sidaad uga barateen mid maaragtay waxyaalahan ay hadda dadkeeni ku wada yaaceen oo noqda waxyaalo iska nixin ah waxyaalo maaragtay brank kugu sameeyay ka waran wallahi brank de waxay noqonaysaa brankan ogahay waayo hadda brankyada beel wallahi kameradii isaga u jeeda ayaa la isku cabaa ma garat marka waxaan asxaabta sharafta leh idinka codsanaynaa sidaan idinkaga baranay sidaad u soo dhaweyseen maaragtay u daawasho badateen Xamda waa la kaftan waxaan ku yiri adigu wax 6 maalmood gudahood 50,000 baa ku daawatay aniga waxyaalaha soo geliya maalmahan active ma yihi laakiin hadda waxyaalaha ugu dambeeyay waayaan 50,000 iyo iska dhaafay 2,000 uma dhawaanin sababta waxa weeyaan horta inagu maadaama ku cusban labadeennina meesha lagu arkay waxa la isla maxay sheegayaan saas loogu soo yaacaan filayaa laakiin YouTube marka aan qiimeysay u dhaweeyay waxa la daawadaa waxyaabaha qashinka ah aan faa'iido ka soo galeynay markaad wax daawanaysid su'aalahan bar baa daawatay ama saacad baa daawatay ama 20 minute baa daawatay waynaad wax ka faa'iiday ma 20 minute ama 30 minute ama saacad khasaare ah inaad meel iska soo fadhiisid oo aad ka daawatay waxaan dani kuugu jirin marka insha Allah waxaan rajaynayaa wax badan oo wanaagsan dib soo gudbin doonaan aad iyo aad ay u mahadsantihiin gabagabadii gunaanadkii waxaan idin leenahay sidaan ku bilownay subscribe like share aad iyo aad ay u mahadsantihiin assalaamu calaykum عليك السلام